السلام عليكم كسو دواada qaybta labaad ee dhisida iyo diyaarinta Callmanager Cisco Callmanager marka videogi kale waxa ku soo qaadanay sida software-ka looga soo dejiyo Cisco markaasna loo qaado tillaabooyinka ugu horeeya configuration-ka oo ah ina IP address account username iyo waxyaalahaas marka waa kana installation-ka ugu dhameeyay hadda marka username-ki accountiga meeshan command line-ka accountiga lagu galo waxa waaye administrator accountiga wuxuuna ahaa example user 1 iyo password okay wuu diiday okay marka waa kana hadda marka command line interface is starting up please wait command line-ka galnay hadeertan so wuxuu diyaarinayaa inuu siiyo command prompt marka meeshan waxyaalaha oo ku taxalluqo administration guuda ka sameyn kartaa command line oo ay kamid yihiin ina network-ga iyo waxyaalahaas modify garaysid marka waa kana VMware installation waa 2 virtual CPU labo maskaxood oo virtual ah diskiga kaas waa 80 gigabytes memory-gana waxa waaye 6144 megabytes waana waxayna macnaheedu tahay 6 gigabytes marka show myself hada trahid wuxuu ku sheegaa detailska waka machine name waxa waaye example 1 marka hadda webka ka soo gali karnaa web application-ka Cisco Callmanager marka proceed then waxaa gelinaysaa meeshaan check username-ki kana wuxuu ahaa marka UCM app user iyo password-ki actually meeshaan isuk aan soo helo app user-ki marka koo soo gashid wuxuu ku siinayaa warning wuxuu leeyahay malaha license ina license gadatid waaye laakiin 9 maalmood haysataa oo license la'aan ku shaqaysan kartid backup maadan sameynin marka also emergency notification maadan setup gareynin marka waxyaalahaas oo dhan hadda danka ma lihin laakiin waa inaan activate gareeno feature risk because hadda wax shaqeynaya male waa serverki kaliya marka feature risk si aad activate gareysid waxa u baahan tahay inaad serviceability marka serviceability marka tagtid waxa aadaysaa tools service activation marka waa ujeedaa wax kasta way dansan yihiin everything is deactivated so ma jeedid so waxaa leedahay check all services and then save marka activating services will take a while xogaa ay qaadanaysaa marka waa joojina videoga inta uu kicinayo waxaan oo dhan okay activation-ka wuu dhamaaday waa ujeedaa meeshaan awal waxay ahayd deactivated hadda waa activated marka markii runtii company runa ay u dhisaysay serverka waxaan oo dhan inay kicisid ma server kasto waxyaalo cayiman ayaa kicinaysa waxyaalaha kale tan waa diminaysa oo waa kala dooranaysa midaal waxa u baahan tahay Callmanager inaa kicisid server kasto laakiin uma baahnid server kasto inaa TFTP kicisid TFTP waxa waaye unuga kamid ah Callmanager services-ka oo configuration-ka u diraya taleefanada
marka hadda taleefanadii ku dareena waxa ay bilaabayna inaan taleefano ku darno so waxa ku noqonaynaa Callmanager administration marka Callmanager administration waa kana services ka dhan way kacsi marka runtii halka waxoo u baahanta waxa waaye inaad samaysid device pool si aad taleefano ugu dartid waxyaalo kale to badan ay jiro ee tahay inaad badbadashid markii kamban run ay u sameynaysid laakiin inay taleefano iswacwacaan waxa u baahan tahay device pool device pool kaasna waxa isticmaali kartaa default marka laba taleefana diyaariyay oo aan ku daraayo waa kana mid waxaan soft phones waa Cisco IP phone oo laakiin soft phone ah oo software ah ma aha taleefan la taaban karo Windows ka ku kor ay installation ku sameyn kartaa waxa la yiraahdaa midkan marka Cisco IP communicator so preferences hadaa aadid network magacaas baa ku register garayn kartaa marka Callmanager-kaygi hore ku jiro marka si aad uga saartid Callmanager-ka hore oo aad u gelino IP waa inaa intaa xirtid markaas administrator ahaan u furtid markaas wax ka bedbedeli kartaa marka run as administrator على Windows kaasa marka kan kale aad diyaarsheeyna waa midkan asagana waa wuxuu ku dhex jiraa asagana VM kaleeto asagana magaciisa aan fiirino waka asaga xataa Callmanager-ka horu leeyahay si marka looga saaro waa inaa intaan xiro aan mar labaad furo with the administrator marka right click baa inta icon-ka ku sameeyay waxa leedahay run as administrator marka uu ku weydiinayo kaasa macnaha markaas la yaab bedeli kartaa IP addresses iyo waxyaalahaas so kana waxa leedahay marka preferences network magacan ha iska haysto Windows 10 waa magaca uu ku register garoobi doono laakiin IP address-ka Callmanager-ka waxa waaye 115 marka kan waa ka tirtireena marka okay baa leedahay okay kan TFTP server-ka waa ku daray and then telefonki kale also preferences and then waxa ka dhigaynaa kan 115 okay so di magaca aan fiirino magacan waa magaca uu isku register gareyn doono Win7 so hada Callmanager ku noqono device phone add new phone markaas kan waxa la yiraahdaa marka Cisco IP communicator so hoostan ku jira Cisco IP communicator kana Cisco IP communicator next marka protocolka isticmaali kartaa ama SIP-wire ama SCCP waa labada protocol ee uu Cisco Callmanager isticmaalo device pool kana waa kaasa phone button template waa batoomada siduu u controlayo telephone korkiisa ku xiran waxaana iska isticmaali kartaa meeshaan Cisco IP communicator template
kana Cisco IP communicator way soo gaabiyeen hadda SCCP protocolka ay isticmaalnay waxa kale oo tahay inaad bedeshidna waxa waaye meeshaan device security profile-ka marka telefonadan secure ma aha so non secure ba iska dooranaysaa waka intaas waaye user ID ay weydiinaysaa laakiin waa marka ay tahay qofka inuu login ku sameeyo telefonka oo account uu leeyahay markuu ma baahni taas save ba iska leeyahay waa telefon hadda uu qof kasta isticmaali karo telefonkan ma aha telefon macnaha oo uu qof gaar leeyahay marka telefon number ku daraaya telefon numberka maana sameynin telefon number wali laakiin waxa iska dhihi karaa 1212 and then save apply marka haddii aad fiirisid marka telefonka hadda inuu register garoobay in kale find that right wali ma register garoobin waa kaasa reset baa leeyahay intuu resetka ku sameynayo marka intaa ku noqdo midkan win 7 aan okay dhaho markaas waa inuu numberka inta ku soo qoro marka waa kana 1212 ja numberkiisa uu leeyahay wax kasto way fiican yihiin marka kan kale si aad ugu dartid waxa u baahan tahay telefonkana fure actually sig horta waka hadda fiirisid wuu register gareysan yahay soo ma jeedid IP addresskiisa wakaasa because wuxuu wataa IP addresska oo machiinta maadaama uu computer ku kordhisan yahay wuxuuna registered wakaasa wuxuu registrationkiisa waka wuxuuna ku register gareeyay example 1 Callmanager ka adisnayo example 1 la dhahay so machiinta kale ta telefonka ku xiran hadaa rabtid inaad ku dirtid kanun baa inta u tagtida waxa leedahay copy markaas magacan baa ka bedelaysa kan kalena waa tuu ah magaciisa Windows 10 so save baa leedahay waxyaalaha kale ta dhan bedbedelka ma number la inaad ku dirtid waa kana numberkiisa inaad ku dirtid waxa leedahay 1213 numberkaas kale toon iska sii so apply save markaas hadaa fiirisid waa kuwaas labadii telefon buu isgarab yaalaan marka midkan wali register ma aha soo ma jeed Windows 10 midka ku xiran machiintan so da furno waa kana marka numberka inuu inta ku soo qormo asagana numberkiisa okay waa kana wuu register gareeyay 1213 1212 na waa kan midkan marka wuxuu ku dhex jiraa Windows 7 VM waatana VM tan ku dhex jiraa oo IP addresskeedu uu yahay 172.16.240.6 midkan wuxuu ku dhex jiraa Windows 10 VM so hadda midkana soo wacaya si aan u test gareeyo 1213 dial wakaas marka Callmanager dhismihiisa iyo sida telefonada loogu daro wakaas laakiin runtii dhismahan wuxuu ahaa dhismo degdega oo laab ah laakiin markii aad company u dhisaysid sheekada intaas way ka badanta haddii companyga aad u dhisaysid markii ugu horreysa uuna Callmanager horay u lahayn waxa waaye telefonka systemka u yaala jaa inaa intaa fiirisid hanaanka ay telefonadooda u diraan dadka nambarada ay diri karaan maxaa la jiray meeqa qof ayaa isticmaalayso oo meeqa telefon ay leeyihiin holaas dhan inaa fiirisid waay waxaas dhan intaa dokumentiyaal qortid oo habeesid oo xisaabisid markaas inaa hawshan martid waay markaas
taleefanadani hadda labadan taleefan si gacan ah ugu daray oo manual ah laakiin runtii markii ay ka hadlaysid 10,000 iyo 10,000 oo taleefan waxa way hal uguma dari kartid marka waxa isticmaalay markaas balka administration waxa leedahay phones template markaas ama upload download files so inta aad taleefanada magacyadooda ama MAC address-kooda Excel sheet gelisid Excel sheet-ka markaas ku upload gareynay inta oo ku register gareynay markaas waxa qaadanay geed la yiraahdo barcode scanner oo inta uu scan gareeyo taleefankooda box ku jiro numberkiisa Excel sheet ku gelinayo markaas ka dambo Callmanager ku upload gareynay numberada la wacaayana of course sheekada intaas way ka badan tahay aniga hadda laba extension leeyahay geliyay labadan taleefan labadan taleefan oo IP address-yadan leh extension simple ah geliyay oo 4 number ah afartaas number runtii banaanka laga ma soo wici karo laakiin taleefanada runtii ay xafiisyada yaala banaanka laga soo wici karaa ayaga xataa taleefano banaanka company-ga ka baxsan ay wici karaan waxay wici karaan number international ah waxyaalahaas oo dhan marka waxyaalahaas oo dhan marka si ay u sameeyso waa ina zaid u qorshaysid oo route hunt inta sameeysid route button gelisid oo u sheegto Callmanager hanaanka uu u diri karo taleefanadaas macnaha numberada la gelinayaba taleefanka naftigiisa iyo hanaanka uu Callmanager inta uu u aqbalo numberadaas ka imaanaya taleefanka markaasna uu u sii partitionka waxa dhex gelinay calling search space marka hanaanka uu shaqeeyo waxa waa partitionka qofka wuxuu u sheegaa qofka soo wici karo asaga Soomaha calling search space kana wuxuu u sheegaa qofka uu asaga wici karo marka haddii number uusan ku jirin partition ku dhex jiro calling search space kaada ma wici kartid adigana haddii aadan ku jirin partition qofka ku soo wacayo calling search space kiisa uusan ku kamid ahayn kuma soo wici karo qofkaas marka sidaas waa sida loo kala gogooyo qofka international wici karo oo number wadan kale yaalo wici karo iyo qof state kala wici karo iyo long distance iyo waxyaalahaas haddana waxyaalaha kaleeto oo ay tahay inaad configure gareysid waxa waaye waqtiga midaal hadaa fiirisid taleefanadii aan configure gareeyay saacada taariikhda way saxan tahay oo maanta waa 29 June laakiin meesha aan joogo hadda 8 saac galabnimo waaye ma aha 6 galabnimo marka saacadaas si loo saxo waa inaad taleefanka assign gareysid date and time group inaad u sheegtid waa meeshu joogo so add new hadaad tiraahid meeshaan ii sheeg waa inaad dooratid time zone marka adduunka dhan waa ka heli kartaa meeshaan ii sugbal inay Soomaaliya ku jirto Soomaaliya marka waxay ka horeysaa Mareykanka 8 saacadood so waxa ka raadin karnaa GMT plus 5 miya meelahaas Asia where is Africa waa kana Africa Casmara waatan Addis Ababa waatan Djibouti waatan waka Muqdisho taasa soo ma jeed Nairobi na taasa marka waa u sheegay meeshu joogo waa GMT plus 3 anigana waxa jooga East Coast US waxa way GMT plus 5 so 8 saacadood oo ay Africa iga horeyso waa kaasa Soomaa marka waa dooranay waa sheegay macnaha magac waa u bixinay meesha aad joogtid magaceeda siinay taleefanka meeshu yaal iyo safarada uu waqtigana ka heli karo marka waxaan rajeynayaa inaa wax ka faa'iideysto videogan waan ku mahadsantahay inaa fiirsatay assalamu alaykum